munaasabadda kowda luulyo oo xalay ku aadanayd 54 guuradii ka soo wareegtay xurnimadii dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan London. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay shacab aad u fara badan oo isugu jiray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska, kuwaasi oo si farxad ay ku dheehan tahay uga waramayay xaaladii ay soo martay ummadda Soomaaliyeed iyo xilligii xorriyadda la qaatay. hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan: Soomaaliyay tooso isku tiirsaday hadba kiina taag daranay taageera warigiinay Soomaaliya ha noolaato ha israacdo one nation. wiigan waxaan ku jirnay usbuucii dabaaldega ee gobonimada sida ka warhaysan Soomaaliya dhedheelkum imaan 1884 ayaa Soomaaliya kala qaybiyay waa loo tashtay sida Afrika loo qaybiyaa laakiin ayada waa si kala qaybiyay taasoo keenaysa in shan Soomaali laga dhigo Soomaalidu inkastoo ay hardantay maanta waxaa la ogaaday ummadan smart inay tahay waxaa loogu talagalay hadda in la si kala qaybsho. ilaahay waxaan ka baryaynaa kala qaybtan socoto hadda waa u wada jeednaa nin walba tuulada uu joogo iyo degmada uu joogo oo Soomaaliga calanka Soomaali ku abtirsanayo ama deegaanka uu doona ha jiro shanta Soomaali meel ay joogaan nin walba qalbiga waxay uga taallaa shanta Soomaali qalbiga uga taallaa laakiin amarka Ilaahay oo jira waxay tahay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigooda kala jeediyo loolan aan muuqan oo dhabarkooda la taxtaagan inay jirto Allah naga fujiyo. runtii waa habeen qaali ah aad qaali xorriyadeenu aad moodid imka Soomaalida waqtiga joogtaa in hadday qiimeyn lahayd habeenka arki lahayd dhibaatada Soomaali haysata maanta inaguma raga dhibaatadii qodaxdan dheer ee inagu mudani maanta inaguma raga kumaynu ragaadneen runtii marka waxaan leeyahay waa habeen aad u qiimo leh inaynu xusno oo isugu nimaadno oo la soconno runtii aad bay u wanaagsan tahay. tan waxay kaloo kaga sii duwan tahay bisha barakaysan Ramadaan ay ku soo beegantay awal bilaha kale ku beegmi jirtay waxaan Ilaahay ka baryayaa bisha fadligeeda iyadoo bisha Ilaahay inooga baryayo inuu Ilaahay inoogu dambi dhaafo sanadkan sanadkiisina kuwii ku gaadha wanaag iyo caafimaad iyo horumar dalkeenana insha Allah aynu rajaynayno maadaama habeenka xusno habeen Ramadaan uu yahay Ilaahay inuu inaga aqbalo oo dadka Soomaaliyeed ee dhibka ka saaro. calanka caawa halka taagan maalintii la saarayay maalin axad ay ahayd inaan ka mid ahaa ardaydii la keenay fagaarihii lagu saarayay ee calanka ruuxaysay. markuu korneelkii Ingiriiska ahaa calanka uu soo daadajiyay uu gasha gashaday ee uu saarayay calankeena ee ka nasiib ka nasaar waxa markaa baanbooyda tumayay nimanka baanbooyda tuma markaa Ingiriisku cadan ka keenay ayay dadku ku raaxaysanayeen soodka ay garaacayeen. ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa horta waxaan nahay dad walaalo ah isku diin ah isku midab ah isku dhaqan ah adduunka lagama helin dawlad sidaas oo kale ah ma jirto dawlad intaas isku qaadatay federationka marka federalism la yiraahdana arrimahaas oo kale federalism ma noqon karaanba marka federalism waxba loogu talagalay annaga dadkii loogu talagalay ma nihin sidaan hadda aan wax soo baran inta aan wax naqaano federalism Soomaaliya oo kale maba loogu talagalin laakiin kulay howlo kale aan looga dan leeyahay Ilaahay annagana sida toosan Allah noogu toosiyo. waxaan jecelahay marka hore guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dhulka Soomaalidu ay wada degto inaan iraahdo hambaliyad diiran iga gudooma. waxaan ka bilaabayaa 26kii June oo gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka xoroobeen gumaysigii Ingiriiska. waxaan ku xijinayaa 27kii bishii June inta aanan kowda Luulyo imanin oo ah 77kii oo Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay gacalka faraha badan na u haysa dadka Soomaaliyeed ay ka xoroobeen gumaysigii Faransiiska. sidoo kale waxaan caawa oo kalena waxaa madax banaanida helay koonfurtii Soomaaliya waxaana midoobay goboladii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya. weligay waxaan dad Soomaaliyeed ahayn dood kumaan gelin dulmi kii sameeyana weligay daa'ismaan oranin waxaa yiri Abaan Cabdi Maxamed Amiin. waxaan uga jeedaa caawa waxaan idinla wadaagayaa kalgacaltooyada iyo jacaylka aad u qabtaan madax banaanidii dadka Soomaaliyeed ay heleen 54 sanadood ka hor. waxaan sugu nimiday 26 June iyo 1 July inaan maartay aan u dabaaldegno caawa
gaar ahaan aniga waxaa aad aan ugu faraxsanahay anoo safar dheer ka imaada maraykanka inaan idinkala qayb galo maxaa la yidhaha 1 July. orobaba malaayuunkun bay madaxa dhaafsheen oo haddana waxay maagayeen inay midoobaan innaguna waxaan kala badhnaa laba macooyood abwaan horena wuxuu yidhi dalku siduu ahaan jiray iyo maanta siduu yahay muuqaalka araggiyo maqalkaba u kala roon dad magac leh oo qoomiyad sharaf iyo karaamo laynu ahayn maanta sayn u kala daadsannahay ee aynu u qaab darannahay ee aynu qaxootiga u nahay ee dadkii dacwooyinka iyo waraabaha iyo muxuu ahaa gaaladu ay u cunayaan iyo sida aynu ahaan jirnay ama aynu noqon karna way kala fog tahay intaasaan dadka shacabka Soomaaliyeed aan u sheegayaa joognay iyo waxaan dhammaan halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa dhammaan gabdhahayna Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay ee ka yimi waqooyi iyo koonfur isku darkoodiba ee caawa xafladda nagala qayb qaatay oo lagu wada xuseeyay 26 Juun iyo midowgii 1 July oo labada gobol ay midoobeen koonfur iyo waqooyi waxaan kaloon hambalyo gaar ah uga dirayaa halkan madaxweynaheena Xasan Sheekh Maxamuud Prime Ministerkeena Cabdiwali Sheekh gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari oo aan leenahay aad iyo aad ayaan adinku kugu hambalyaynayaa Yusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London.